madaxweyne xasan sheekh ayaa kulan muhiim ah la qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay. Faafahinta warkaas waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Ibrahim. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay furitaanka meertada 31aad ee shir madaxeedka ururada jaamacadda Carabta oo ka furmay magaalada Algiers ee caasimadda dalka Algeria. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shirkaani ka jeedin doona khudbad uu kaga hadlayay dhibaatooyinka ay waxa loogu yeero argagixisada ku hayso nabadda Soomaaliya, horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya, iyo sidoo kale guulaha dowladda iyo shacabka oo wada jira ay ku xaqiijiyeen amniga deegaano badan oo horey gacanta ugu jiray Al-Shabaab. dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka Algeria waxa uu kulan kula qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, isaga oo kala hadlay dagaalka dowladda ay kula jirto Al-Shabaab iyo muhiimadda ay leedahay taageerada beesha caalamka si loo soo afjaro dagaalka. madaxweynaha ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay la wadaagay horumarada ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ka sameeyeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. waxa uu xusay in cunaqabateynta hubka oo laga qaado Soomaaliya ay si weyn u caawinayso ciidanka xoogga dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda oo tilmaamay in dowladdiisa ay ka go'an tahay dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab ayaa qaramada midoobay ka codsaday in ay sii kordhiso taageerada bini'aadanimo iyo tan farsamo ee ay siiyaan dowladda Soomaaliya si loo xaqiijiyo kalsoonida dalka iyo in ciidanka Soomaaliyeed ay la wareegaan kuna filnaadaan ammaanka dalka. xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bogaadiyay sida dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ay ugu mideysan yihiin ammaanka dalka iyo dhamaystirka dowlad dhiska Soomaaliya, isagoo intaas ku daray in qaramada midoobay ay Soomaaliya ka taageerayso dagaalka Al-Shabaab, tageenta ciidanka qalabka sida iyo arrimaha la xiriira isbedelka cimilada iyo deegaanka. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn u mahadceliyay qaramada midoobay taageerada ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya, waxa uuna adkeeyay in ay sii wadaan garab istaaga ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed u muujiyeen. madaxweynaha ayaa intuu ku sugan yahay Algeria waxa uu kulan duceed la yeelan doonaa madaxda dalalka Carabta, hoggaanka hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee ka soo qayb galay meertadan. madaxweynaha waxaa ku wehelinayay shirkan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Abshir Umar Hurushe, wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cilmi Maxamed Nuur, safiirka Soomaaliya ee dalka Masar ahna wakiilka Soomaaliya ee ururka jaamacadda Carabta Danjire Ilyas Sheekh Umar Abubakar, iyo safiirka Soomaaliya ee dalka Algeria Cabdi Wahaab Macalin Maxamed.